بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد marka ugu horeysa bahda waxa weeye warbaahinta aad baan u salaamayaa aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee u raadinaysiin xaqiiqada iyo runtu waxay tahay aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan inaga rajaynaynaa insha Allah taala sidaad xaqiiqada u arkaysaan ee waxa weeyaan u baaraysaan ee u daba socotaan ee markay meel wax inaga galaan ha u daba joogsataan inaad runtan ugu dul joogsataan saasaan inaga rajaynaynaa insha Allah taala qofka bini aadankiina iclaamka ama warbaahintu dhinac kasta loo adeegsan karaa waxa loo adeegsan karaa qofku inuu sidii dadka qaarkood yiraaha been sheeg ilaa laga rumaysanayo iyo inuu yiraahdo waxa weeyaan run sheeg si aad u gaadho horumarka wadanka iyo wanaaga iyo waxa horumar jira wadanka si loo gaadho waana ku mahadsantihiin sidaad waxa u soo raadiseen warbixintii dhalaarahan laga sii daayay waxa weeyaan YouTube yaasha ama WhatsApp-yada ama meelahii waxa weeyaan warbaahinta laga sii daayay runtii waan ku celcelinaa dhowr goor horena waan u sheegnay meeshan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay u keenay Somaliland buu keenay Somaliland marka laga wala yimaadana ilaahay waxa weeyaan Hargeysa u keenay waxaana ugu keenay ilaahay waa amal dad khayr qaba oo waxa weeyaan khalijiina ama kuweytiinihi hay iska soo ururiyeen oo yiraahdeen agoontaan u dhisaynaa meel lagu hormariyo way keen alxamdulillah wax dhibaato oo waxa weeyaan ama wax iyagu hadaf iyo ujeedahay kale yihiin oo ilaahay daraad yahay ma jirto wayna ku guuleystaan alxamdulillah waxaana lagu tirin karaa maanta marka hay'adaha la sheegayo 176 hay'adood baa wadankeena joogta dadka qaarkood yiraahdaan waxaan haddii la iska dheereeyo beenta ama waxa way hadallada ahanan waa la yirida waa hay'adda kaliya ee wadanka wax la taabta ka sameysay waxaan ku bixinay 4 milyan oo dollar dhismaha waxaan gelinay mashaariic ka badan 25 milyan baan Somaliland gelinay maxaan u gelinay waa horumarka muxuu ka shaqeynayaa wuxuu ka shaqeynayaa agoonta wad ogtihiin horeyna waan u idhi hadalkaas oo TV-yaasha qaarkood waan u sheegay waxaan idhi agoon haddii meel lagu xereeyo oo jihadii ama qaybtii ama dadkii wax la baxay ha iyaku waxa weeyaan lacagtii ay dhahaan waan ku khasaarnay maalan lacag waan weynay meelaan ka bixinaan weynay wayna dhacday hay-addan aan la shaqayno ee African Relief Committee hoos tegtana Ar-Rahma oo Kuwait ku taala waxay lahayd meelo badan markii lagu soo duulay Ciraaq ku soo duushay Kuwait meelay way xidheen kula Kuwait lagu soo duulay nimankii dib u fikireen waxay yiraahdeen wartii oo kale inay dhicine mashaariic kala han sameeyeen mashaariicda waxa kamida ina iskuulka la balaariyo oo iskuulkii matala Djibouti ku yaalo kale ku ka balaaran laga sameeyo oo la yiraahdo iskuulkan Somaliland oo dhan ka wax bixinayna ha bixiyo ka agoonkana xaqiisa ha qaato waa la sameeyay iskuulkii waa la furay dadka waxa wixii lacag bixinayana lacagta laga qaado ka agoonkiina waa ka kaliya isaga lagu sadaqaysanayo bilaashkiisa ku dhigto qaybtii agoontan sameeyna marka qaybtii waxaan sameeynay iskuulka caadiga oo waxa weeyaan fiidii iyo waxa weeyaan lacag laga qaado waana wax og yahay xafiiska Kuwait og yahay maxaa looguna tala galay haddii kursiga ay u banaanaado kursiga kalena agoonku fadhiyo kursiga banaan in la keeno qof lacagta bixiya lacagtana lagu fangareeyo ayaa lagu fangareynay agoonta lagu fangareeyo sidaa daraadeed waxay sameeyeen mashaariic soo aragteen beertu kamid tahay warshada roodhidu kamid tahay qaybta farsamada gacanta ay kamid tahay iskuulka oo fiida laga qaado qaybta waxa weeyaan lacagta lagu dhigto waa soo wala marteen agoonta ku jirta waxa weeyaan inta ka faa'iideysanaysi waxa weeyaan waa 477 agoon baa ku jira dadka lacagtan ka qaadana waa 107 qof dadka lacagta laga qaado farqiga u dhaxeeya waad ogtahay waxaan ku gaarnay waxay ahayd sida caadiga ee loogu talagalay inaan sanadkan 250 soo gaarno agoonta mar kaliya ayaan kor u kacnay oo 427 soo gaarnay maxaan u gaadhaynaa waxa weeyaan fursada Somaliland iyo dawladda Somaliland ma siisay inaan anaguna ka faa'iideyno oo ina dul joog oo ina garab joogto oo ina la qabatay wax badan la tirtirisay inaan anaguna waxa weeyaan agoonta tiradeeda badino mid way jirtaa dadka taagta daran leh ee masaakiinta
iyo dadka waxa weeyaan dowladda xukuumaddu hadday isku tiirsanaadaan meel baa la gaadhayaa. ceebna maaha inaan Somaliland wala shaqayno, waana dowladdeedii, waana dadkayagiina, waa ummaddaan u shaqaynaynaa. saa daraaddeed waxaan leenahay annagu waxaan u taaganahay agoonkaas wixii raaligelinayaan u taaganahay. marna mana dhicin, mana dhici doonto, horeyna uma dhicin qof agoona oo meel ku jira oo soo galay waxa weeyaan systemka hay-adda soo galay inaan laga saaro, looga saaro qof awood weyn, mana dhicina mayso. bal waxaa dhacday nin macallina inuu agoon garaaco oo macallinkii la eriyo, wayna dhacday, wayna jirtaa. saa daraaddeed waxa weeyaan qofka bini aadankan waxa fiican markuu wax sheegayo inuu waxa runtaa sheego. ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walaa yajrimanakum sha'naana qowmin anlaa tacdilu. hadduu qofku kugu xadgudbo oo qof waxa weeyaan ha kusii xadgudbin oo kugu xadgudbay ha odhan beena sheegin, xataa hadday wax jiraan waxaa jira ka sheeg. rag badan oo waxaan daawanaya dhalaarahan inta badan waxyaasha lagu soo daayay warbaahinta iyaan aad u akhrisanayay oon aad u eegayay. waxaan arkayay dadkii noohan ugu jeclayn ee weliba dhaartii ugu dambaysay isaga oo faraxsan oo camooya adeertay haya, haddana waxa weeyaan noqday inuu noqdo waxa weeyaan dad annaka nagu soo jeestay. sababta annaka naguma soo jeesta, annagu walaalkii baan nahay, waddankii baan wala joognaa, walaalaan nahay, laakiin wuxuu u jeestay mashruuc weyn oo Somaliland maanta lagu faanayo oo shisheeye iyo ku fog iyo ku dhowba ay ku faanayaan ayaa in la dumiye loogu talagalay. waxaad ogtihi waxaad ogaataan oo nacam aad u eegtaan mashruucan dad badan ma jeclo. maxayna u jeclayn? liannahu horumar badan buu ku keenay waddanka. horumarkaa u keenay dhakhtarkaabaa kamid ah international hospital, waxaa kamid ah beerahada aragteen ee dadkeeni dad badan kaga daydeen green houseka ee quruxda la sameeyey inay dad kaga daydaan. waxaad aragteen farsamada gacanta ee la keenay si ay ummaddeena in badan wax uga barato oo hadhow iyaku dadkan u noqdaan dad wax taraya. ta kale waxaan u soconnaa annaku kuwa beeraha inaan wax ka barano, kuwa dhakhtarka inaan wax ka barano, kuwa farsamada gacanta inaan wax ka barano. markay noo gaadho inaan idhahno way noo gaadhay, jazakumullah khayr, waad mahadsantiin. waxaan u soconnaa inaan waddankeena horumar u soo qaadno. waxaan laakiin ugu waxa foolxumaa nin han waddankeenna iyo wanaageenna iyo ummadeenna iyo Somaliland wanaag la doonayn inaan sacabka u garaacno, handacayadnaan u fidino rakhiisa oo hanan jirin, meel waxa weeyaan run ay salhay ku leedahayna jirin. marka waxaan niga rabnaa ka waxa weeyaan bahda warbaahinta ee quruxda badan ee dhalinyarta u badan ee timiday maanta halkan inaad aragteen indhihiina mashruucan iyo wanaagiisa inaad aragtaan, inaad ka sheekaysaan. ugama sheekaynaysiin inaan anagu wax inagu siinay, ugama sheekaynaysiin inaan anagu wax inaga doonayno, ugama sheekaynaysiin inaan anagu dad ku difaacayno. ceeb han leenahay inaan ku qarinayno, ceebi ma jirto. albaabku wuu furan yahay. qof kastoo doonaya inuu waxa weeyaan xisaabaadkayga dib ugu noqdo, doonaya inuu ogaado sidaan agoonta ula dhaqano, inuu ogaado agoontu siday wax u cunto, inuu ogaado lacagta ku baxda agoonta, diyaar baanu nahay. albaabkaygu nuu furan yahay. marna waxa weeyaan anagu albaabka ka xidhi mayno. laakiin waxa ceebuuna qof bili aadana meeshu nidaam bay leedahay, kala dambayn bay leedahay, sharci bay leedahay. sharciga hay leedahay waxaa kamid a qofkii hadduu shaqaysan waayo shaqada inaan laga helin. waxaa qofkii soo qadimay ee soo bandhiga ee idhaaha shaqada waan ka tegayaa, shuruud baa noo dhaxaysa inuu 2 bilood ka hor soo sheego, annaguna haddaan ka maarano 2 bilood ka hor sheegno. qofkii ka tegey ee ogaanta isaga gaar ahaantiisa uga tegey ee shaqadiisa kaga tegey, ama isagu dhaliil annaka naga arkaya uga tego, ama dan isaga u gaadha uga tegee inuu waxa weeyaan meelahay aqoontaa lay ku jirto oo ceeb soo jeediyay. ana waxay la tahay waa foolxumo wadankiisana uu ceebeeyey, isaguna shakhsiyan qofka uu isceebeeyey. markaas daraaddeed waxaan leenahay dadka waxaa ka dambeeyay waa dad dan soke ama fog hanan u haynin Somaliland, kana horjeeda horumarka Somaliland waxay gaadhay dimuqraadiyadda ay gaadhay. waxaa kamid a inay dad qofka meel kasta la iska caayo, laakiin in la wanaajiyo oo la fiicneeyo ayaa wanaagsan inta la iscaayayo. dad badan markaa waxay ka xun yihiin dimuqraadiyadda sidaa u koraysa, horumarka sidaa u koraya, eraboodada sidaa loo horumarinayo, mashaariicda waaweyn ee kuwadii noogu deeqday ee sidaa loo horumarinay ay ka xun yihiin. markaa saa daraaddeed waxaan leenahay war dadka dantaa rakhiiskaa wada ha laga digtoonaado. mashruucayna mashruuc marna laga heli maayo $1 oo isdhaafa laga heli maayo. waana ballan anigu qofkii waxa weeyaan ururka ugu sarreeyay baan maanta $1 halkuu baxana qofkii dooran waan tusaynaa.
khaayinimana laga heli maayo, madmaduna laga heli maayo, musuq maasuqna marna ma soo dhex garayso. ta kale dadka ajaanibkee jooga waa dad tababar noogu jooga inay tababaraan ummadeena iyo dadkeena. kolkay tababaraan waan ka maarmaynaa. marna kuma shaqaynayaan inay waxa weeyaan cunsuriyad ku dhex sameeyaan annaka oo joogna. waxaan u taaganahay inaan ilaalino qofka reer Somaliland ee wadaniga inaan ilaalinano taaganahay. kan kale ee waxa weey ajaanibkeena tababaraya ee aan u baahanahay maantana inaan ilaalino isaguna xadka u dhaafin isagana lagu xadgudbin ayaan joognaa. saa daraadeed waxaan leenahay wixii aad aragteen ee waxa weeyaan maanta mashruuca ka aragteen way nii furan tahay, berri bay nii furan tahay, saa dambe bay nii furan tahay. laakiin waxaan ii sheegayaa war xaqiiqada marka la raadinayo runta waa inaan lagu saleeyo. marka ininka runta ku saleynaya insha Allah taala waxaan u malaynayaa rajaynayaa inaad wax badan la soo bixi doontaan, xaqiiqo badan gunteeda soo taaban doontaan. aad baan idinku mahadnaqaya, waan mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.